kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaartayna daawanaysa meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Howraarsan oo si toos ah idinkaga imaanaya RTN xarunta dhexaan oo ku leenahay magaalada Nairobi. waxaan idila socodsiin doonaa daqiiqadaha aan barnaamijka ku guda jirno anigoo Cabdilcasiis Barrow. qodobada aan idinkugu hayana waxaa kamid ah ataliye ku-xigeenka ciidamada dambi baarista CID da Soomaaliya sareeyo guud Bishaar Abshir Geedi oo ka hadlay askar la xirxiray iyo sidoo kale musuqmaasuq ay ku lug lahaayeen halka qaarkoodna uu sheegay inay sameeyeen amar diido. Senator John McCain oo kamid ah senatarada waaweyn ee wadanka Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inuu u geeriyooday xanuun sanadihii dambe oo la jiifay oo ahaa kansar maskaxda kaga dhacay sida uu sheegay xafiiskiisa isagoo geeriyooday mas'uulkaasi isla markaana saameyn ballaaran ku dhaxlaa dhinaca siyaasadda wadanka Mareykanka. qodobada kale oo barnaamijka idinkugu hayo waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwaha amniga qaranka wadanka Kenya Dr. Fred Matiang'i oo isaga sheegay in ilaa iyo 28 sargaal oo kamid ahaa dadka ka shaqeeya arrimaha socdaalka shaqada laga diray isla markaana uu sheegay in ilaa iyo 60 ruux in dalka laga musaafuriyo waxana uu sheegay inay bilaabi doonaan la dagaalan ka dhan dadka ka ganacsada muqaadaraadka ee aan Kenyaanka ahayn ku nool gudaha wadanka Kenya isagoo amray ciidamada booliiska wadankan in howlgal degdeg ah ay sameeyaan. wararka inaga soo gaaraya magaalada Dinsoor ee gobolka Bayna waxa ay sheegayaan in halkaasi laga bilaabay olole ballaaran oo la xiriira dhinaca nadaafadda. wararka sidoo kale aan idin hayo oo aad barnaamijyada Howraarsan aad kula socon doontaan daawadayaal waxaa kamid ah hogaamiyihii mucaaradka ee wadanka Russia oo isna xabsiga loo taxaabay. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa Howraarsan. watahay daawadayaal isku soo laabasho wanaagsan mar kale waxaad la socotaan Howraarsan oo si toos ah idinkaga imaanaya RTN studio dhexe ee magaalada Nairobi. aan ku horreeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba isku duwaha amniga qaranka wadanka Kenya Fred Matiang'i ayaa waxa uu sheegay in ay dalka laga tarxiilay ilaa iyo 60 ruux oo la sheegay inay ahaayeen dadku jooga sharci darro isla markaana ka shaqeynaya waxyaabo aan wanaagsaneyn. Fred Matiang'i waxa uu sidoo kale sheegay isagoo hadlaya maalintii Jimcada in 28 kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya hay'adda socdaalka ee wadanka shaqada laga ceeriyay isla markaana 60 ajnabi ah wadanka laga musaafiriyo kuwaasi oo sharci darro ku joogay. waxa uu tilmaamay dadkaasi shaqada laga joojiyay inay ku lug lahaayeen musuqmaasuq halka qaarkoodna ay bixiyeen waraqo aan habboonayn iyagoo siiyay dad aan mudnayn. Matiang'i waxa uu sidoo kale sheegay in dadkaasi ajnabiga ah ee qaarkood wadanka laga tarxiilay ay sheegeen in ay guursadeen gabdho wadanka Kenya u dhashay isla markaana ay ka ganacsanayeen muqaadaraadka. waxa uu tilmaamay in waalidiinta ay si wanaagsan ula socdaan gabdhahooda cidda ay ku darayaan iyo waliba waxyaabaha ay dadkaasi ka imaan kara. waxana uu hadalka soo hadal qaado uu ku sheegay in aanu aqbali doonin dadkaasi wadanka ay ku sii noolaadaan iyagoo ka ganacsanaya muqaadaraad isla markaana isku qarinaya maqaayadaha sida uu hadalka u dhigay. waxana uu tilmaamay in tani ay ahayn mid wanaagsan isagoo sidoo kale Matiang'i sheegay in arrintaasi uu kala hadlay taliyaha dhinaca socdaalka ee wadanka Kenya Kalangwa iyo mas'uuliyiin kale. haddaba arrintani waxay noqotay mid si weyn dadka Soomaaliyeed ee maalmihii dambe u hadalhayeen tani wixii ka dambeeyay markii Matiang'i hadalkaasi ay ka soo baxeen la xiriira in 60 ruux oo ajnabi ah oo wadanka laga musaafiriyay. tan waxa sida weyn u hadalhayay waxa kamid ah bulshada Soomaalida oo iyaga maalmihii dambe sheegayay in ay jiraan arrimo iyaga quseyn kara oo la xiriira in ay saameyn ku yeelato halka dadka qaarna ay sheegayeen waa sida hadalka u dhigeen inay suuragal noqon karto inay raaf ka bilaaban doono meelo kamid ah magaalada Nairobi oo ay kamid tahay xaafadda Islii. arrintan cabsida ah ee sii kordhaysa ee la xiriirta bulshada Soomaalida oo in badan oo kamid ah qaxooti ah ayaa waxaanu inala falanqeyn doonaa oo studio igula soo biiray Shiina oo isaga kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaalida Nairobi. Shiina
kusoo dhow horaarsan ay RTN gudahaanba waa maasanta waa ku dhawahay watahay tan iyo waxay ka dambeeyay markii Matiang'i uu Jimcadii sheegay in 6 ruux wadanka laga tarxeelay oo si sharci darro ah ku joogay isla markaana 28 sargaal oo immigration ka shaqeynaya shaqada laga diray waxa soo baxaya cabsi iyo hadal hayn bulshada Soomaalida dhexdeeda ah oo la xiriirta in waa sidoo hadalka u dhigeen ay raaf bilaaban doona bal arrimahaasi iyo hadalkii Matiang'i haddii aan isbarbar dhigno maxaa muuqan kara leedahay bismillaah waa ku salaamaya dhageystayaashana waa salaamaya soo wanaagsan tan iyo markuu wasiirka arintaas ku dhawaaqay run ahaantii dadweynaha ama shacabka ku dhaqan xaafadda Islii intooda badan sida kuwa qaxootiga ah ama ku joogo sharciyada kale ee wadamada kale cabsi badan ayaa la soo wajahday tan iyo shalina wayna soo wacayeen mas'uuliyiinta inta badanna way soo wacayeen ayagoo raba inay hubsadaan ama xaqiijiyaan wararka xaafadda la isla dhaxmarayo ah in raaf uu bilaaban doono qaarna ay leeyihiin wuu bilowdo guriyaha xalay la galay dacayadu waa iska badan tahay warka wasiirka uu soo saaray ayay si qaldan u fahmeen saa ula socotid dawladdan cusub Jubilee markii la soo doortay madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in lala dagaalami doono musuqmaasuqa nimanka ka ganacsada daroogada wadanka soo geliyay waxyaalaha la mamnuucay ama tayadooda ay liidato arrimahaas ayay ka mid ahayd waxa wasiirka uu sheegay isagoo u yeeray saraakiisha amniga sifa ay talaabo ugu qaadaan wax ku soo batay wadanka maalmahan dadka ka ganacsada daroogada sidii ay wadanka ku joogi lahaayeen ay deganaansho u heli lahaayeenna bilaabay arrimo in gabdhaha wadanka u dhashay ay lacagna ku faraqaan ay guursadaan sifa ay u helaan sharciga deganaanshaha ee wadanka ganacsigooda kalena oo xaaraanta ah ay ku qarsadaan sida arrimaha uu wasiirka sheegay ah in daroogada ay ka ganacsadaan marka wasiirka taas ayuu sii xoojiyay asagoo sheegay in wasaaradda bixisa socdaalka waraaqaha socdaalka bixisa in baaritaan uu sameeyay la ogaaday saraakiil badan inay si qaldan ku siiyeen dad badan oo ajnabi ah baasboorra ama sharciyo deganaansho ah talaabana laga qaaday oo shaqada laga joojiyay inta badanna in badan oo dad shisheeye ah oo ka ganacsado sida daroogada kale makiinadahan lagu ciyaara qamaarka iyo waxa la midka ah la masaafuriyay haddana ololo amar uu ku bixiyay in askartu ay soo qabtaan cid alla cid shisheeye ah oo wadanka joogto si sharci darro ku joogto ganacsiga xaaraantana sameynayso ha noqdo muqaadaraad ama wixii la mid ah watahay sida ka muuqata hadalka wasiirka iyo wararka xaafadda Islii dhex yaala oo Soomaalida ugu badan ay ka cabanayaan waxaad moodaa inay si weyn u kala fog yihiin oo dawladda waxay la dagaalamaysaa musuqmaasuq maalmihii ugu dambeeyay madax baa la xirayay oo musuqmaasuq iyo xawal lagu soo eedeynaya haddana dad ajnabi ah oo ka ganacsada muqaadaraadka iyo waxyaabaha wanaagsaneyn oo qamaarka uu ka mid yahay ayuu wasiirku ka hadlay isagoo waliba hadalkiisa ku sheegay askarta in dadka meeshaas ay ku qabtaan ay ku arkaan ay xabsiga dhigaan maxaa isu keenaya baa la leeyahay in Soomaalida ku nool xaafadda Islii ay soo hadal qaadaan sheekooyin hore u dhacay oo kale oo la xiriira raaf iyo dad xaafadaha loogu galaya iyo in cabsida intaan leeg ay sii kororto aragtidaada waxa isu keenayo mar haddii sharci darro timaado Soomaalida sida u badan xaafadda ku dhaqan waa qaxooti qaarna waxay wataan baasboorro ajnabi ah oo viisooyinka u saaran yihiin wadankaana saa ula socotid musuqmaasuq heerka uu gaari waad la socotaa taas ayaa keenaysa in Soomaalida lafteeda cabsi badan qaado ay gasho booliska wadankana waa taqaana qaabkay u shaqeeyaan haddii fursad loo siiyay in ay ololo sameeyaan ay ku soo qabanayaan dadka sharci darrada ah meesha ugu horeyso ay u maleynayaan inay aadaan ama wax ka heli karaan musuqmaasuqnimo ay tahay dhanka Soomaalida oo u jilacsan in ay jeebka gacanta geliyaan una fudud inay xornimadooda aan laga qaadin hataa hadduu sharci haysto uusan haysanba ogoleenba in saldhig la geeyo ay noqon karto meesha ugu horeysa ee ololaha ka bilaabaan inay noqoto xaafadda Islii laakiin sheekada saas ma ahan wasiirku wuxuu sheegay inay ku nool yihiin hoteelo xaafadaha kale sida Donholm iyo Komoroki iyo maqaayadahan isku qoraya Halingam iyo maqaayadaha hoteeladaas ay degan yihiin dadkan ay yihiin dadka ganacsada daroogada lacagahaas feega ah oo la dhaqo sida dollarka midkan UN-ka iyo waxaas la mid ah iyo makiinadahaas qamaarka ah hataa waxa soo galaya daroogada markii la shiishada iyo wax la mid ah oo dhan dadka ganacsada inay yihiin waxa ay dawladda mamnuucday oo dhan dadka ganacsado oo dad shisheeye ah kalifana in heerna waxay gaareen in gabdhihii muwaadiniinta wadanka u dhashay ah sifa ay sharcigu ugu fududaado maadaama sharciga dhanka kale ee ganacsiga la adkeeyay ay isku dayaan inay guursadaan sifa ugu fududaado inay u helaan sharci wadanka ay ku joogaan deganaansho ah
ganacsigooda xaraantan ay wataan marka ololaha wasiirka ku dhawaaqay in ololahaas booliska ee laamaha amniga ay u howlgalaan ay wadanka ka sifeeyaan Nairobi kaliya maahan waa wadanka oo dhan wadanka ay ka sifeeyaan ma ahan kii hore sidii raafkii isli intii baabuur la keeno guryaha la galayo dadka sharci la weydiinayo la qaban ma ahan waa olole ka duwan ka farsameysan oo sirdoonkana uu la shaqeynayo booliska meesha ay ku socdaan ay og yihiin qofka ay raadinayaan ay og yihiin waa gartay ilaa hadda lama soo hadal qaadin dad qaxooti ah in askartu ay beegsanayso hadalka wasiirkana kuma jirin laakiin dadka ugu badan ee hadda walwalka dareemaya waa bulshada Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya colaadaha uga soo tagay dhibaatooyin kale Kenya ku nool isla markaana haysta sharciyada arrimaha qaxootiga la xiriira dadkaas hadda walwal fara badan bay dareemayeen maalmihii ugu dambeysay walow la sheegayaba in xitaa waalidiin ay u baqayeen in carruur halkan wax uga barato ay isweydiin kareen sida carruurtooda waxbarasho u sii wadan karaan bal dadkaasi maxaad u sheegi lahayd oo la wadaagi lahayd aragtidaada waxaan ka oran lahaa bulshada Soomaaliyeed oo bulshada la yaqaan darooga iyo wax la mid ah intooda kama shaqeystaan in ay cabsida iyo wararka suuqa ku jiro aysan cabsi gelin ganacsigoodana ay wataan waa dad ay dawladda og tahay inay qaxooti yihiin wadanka joogaan loona ogol yahay inay shaqeystaan ardayda caruurtoodana inay iskoolada geystaan sida muwaadiniinta wadanka ku nool oo kale cabsidaas ay iska dhaafaan warka badan Soomaalida xaafadda ku dhaqan hadaan nahay waa war badan nahay wararka aan saxda ahayn suuqa wareegayna aan iska dhaafno aan ku mashquulno sidii aan wadankan wax ugu dhisi lahayn ganacsigeena iyo nolosheena aan u horumarin lahayn hadii lacala ay ku timaado in guriga la soo galana xaafad walba Soomaalida ay ku nooshahay saldhig booliis ay leedahay waxaan ka codsanayaa in siba kuwa isli ku nool ay raadiyaan ama telefonka OCS ka xaafadda shala waxaan yeelanay hadaan nahay arintaas darteed laamaha qaabilsan xagga amniga iyo mas'uuliyiinta xaafadda shir aan qaadanay ku saabsan arintaas OCS ka xaafadda laftiisa wuxuu yiri telefoonno badan ayaa ugu soo dhacay oo leeyahay guriyaha la galay iyo taas waxaan asaga laftiisa wuxuu leeyahay waxaan ku wareeray inay askarti booliska ay tahay operation sameynayaan iyo dawladda hoose oo maalmahan ololo nadaafadda iyo waxyaalo la xiriiro iyo guryahaas la duminayo marka anagu lafteenu na weydiinaya telefoonno badan ayaa igu soo dhacayo xaafadda laga soo wacayo guryaha la galay iyo marka asaga laftiisa uu xaqiijinay wuxuu yiri telefoonkayga hal la qaato hadii wax noocaas ay yimaadaan ay booliska xaafadda ay yihiin ama xaafadka ka yimid uusan jirin wax ololo guryo lagu galaye hal isoo waco si loo xaqiijiyo marka meel kasta ay joogtaan waa inaad saldhiga idin dhow ninka mas'uulka ka ah telefoonkiisa qaadataan sifaad u xaqiijisaan hadii lacalaba ay dhacdo in guri la soo galo watahay bulshada qaxootiga ee wadankan ku nool shireen sida la socona Soomaaliya oo kaliya maaha bulshooyin kala duwan baa jooga oo wadamada kale oo dariska ka yimid oo koonfurta Suudaan iyo Uganda iyo wadamo kale ka soo yimid sida la soconaba inta badan walwal ma qabaan laakiin bulshada Soomaalida marka ay maqlaan dawladda howlgal sameynaysa ama waxa la dagaalamaya waxyaabo sharci darro ah walwal badan baa la soo dirsa maalmihii ugu dambeysay xitaa intaan wasiirka hadlay waxaa jiray dad fara badan oo mararka qaar xitaa warbaahinta Soomaalida weydiinayay maalmaha soo socda raaf baa bilaabanaya maxaad kala socotaan maxaad warar ugu soo kordhin kartaan oo kale wararka noocaan oo kala Soomaalida u soo daweeyad isleedahay oo bulshada ka caalamka noocaas ah kaliya taariikh ahaan Soomaalida waxaad la socotaa in ciidamada wadankan ha noqoto Soomaalida Soomaaliya ka timid qaxootiga ah ama wadanka u dhalatay waqooyi bari tacadiye badan iyo howlgallo badan lagu soo sameeyay maskaxdooda tii ayaa wali maskaxdooda ka guuxaysa markay maqlaan dawladda isbedel ayaa jiro ama amniga ayaa howlgal iyo wax la sameyn rabaa waxa ku soo dhacaysa qolada ugu horeysa loo socdo inay ayaga yihiin marka annagana hadaan Soomaaliin nahay waxaan nahay dadka fadhi ku dirirada fariisto sheekaysto wararka falanqeeyo wasiibun buuniyo marka taas ayaa waxay keentay in wararkaas ay sii faahaan sii aad suuqa u galaan xaafadana ay noqoto hadal haynta ugu badan in bilihii la soo dhaafo dhan ay dadka cabsi ka qabeen in dawladda ay soo wado in howlgal culus oo xaafadda lagu sifeynayo aniga marka waxaan oran lahaa bulshada xaafadda ku dhaqan warar noocaas inaysan jirin dawladdana hadday rabto in ay ololo sameysana aysan marka horeba idaacadaha hadii qaxooti ama isli ay ku soo socoto aysan sheegin ba meesha ay ku socoto iyo waxay raadinayso wasiirku wuxuu sheegana waxay tahay waa wax dhibaato maanta wadanka ka jirta xagga muqaadaraadka oo mudan in lala dagaalamo mudan sida hadda dawladda ay ula dagaalamayso musuqmaasuqa ka jira laamaha dawladda dadka Soomaaliyeed ee sharciyada qaxootiga haysta in badan oo kamid ah waxay isku arkaan dad aan iyaga xuquuq lahayn u nugul wax kasta oo dhaca
isla markaana sharciyadooda ay yihiin kuwa xaq u siinaya in wadankan ay ku sii noolaadaan inkastoo ogyihiin inuu sharci yahay haddana waxay isweydiinayaan xuquuqda ay yeelan karaan iyo sida wadankan ay ugu sii noolaan karaan iyo weliba mararka qaar in laamihii ammaanka bay u tegi karaan sharciga dadkaasi ay haystaan markaan u imaano iyo weliba xuquuqda ay ku leeyihiin Kenya inay ku noolaadaan maxaan kala wadaagi karnaa oo u sheegi karnaa bal si dadka walwalka qaba arrimaha qaxootiga sharciyadana ka haysta ay u ogaadaan saa la socotay dowladda Kenya waa dowlad dastuur leh dastuurka Kenya waxaa kamid ah qodob xuquuqda qaxootiga ilaaliyo sida wadamada Yurubka Mareykan iyo kulli qaramada midoobana ka ansixiyeen ayna kamid yihiin marka dadka qaxootiga ee sharciga qaxootiga haysto waa dad wadanka dastuurka ka jira uu og yahay ogol yahayna inay wadanka ku noolaadaan ka ganacsadaan waxna ka bartaan sida muwaadiniinta kale ee wadanka u dhalatay ayagana laga doonayo in shuruucda wadanka ay u hoggaansamaan amniga ay ka shaqeeyaan horumarkana ay ka shaqeeyaan waxa lidka ku ahna nabadgelyo aysan ku faragashan laakiin qofka qaxootiga hadduu qalad galo waxa lagu helo wuxuu noqonayaa dambiile qaxooti ma noqonayo marka muwaadiniinta Soomaaliyeed u badan xaafadda Islii oo qaxootiga intooda badan ah ninkii sharci leh oo isdiiwaan geliyay ha ogaada in dawladdan ay og tahay dastuurkana oo xuquuqda wadankan uu ku leeyahay dawladdan ay og tahay oo aan xadgudub lagu sameyn karin kii aan haysanin waxaan kula talinayaa in xaafadda waxay leedahay meel iska diiwaan geliyo ay iska diiwaan geliyaan aysan waxa qaar waxa ku qafulan in dhalinyarada hadda timid u badan inaysan sharciga qaxootiga qaadan ay rabaan inay muwaadinimo Kenyaan sharciga qaataan isku diiwaan geliyaan dawladda Kenya talaabooyin badan ayay sameysay systemka dhan waa la bedelay waraaqaha iskoolada iyo dhalashada iyo baasboorada kulli waxa laga dhigay hal system oo shuruuc ah oo yimaada sifa loola dagaalamo dadka qaxootiga ah wadamada dariska ka yimaadaya oo muwaadinimada sharciga Kenya qaata si musuqmaasuq ah marka waxaan kula talin lahaa in hadayba joogaan ay sugayaan inay sharci Kenya qaataan ay taas iska iloobaan ay iska diiwaan geliyaan meelaha qaxootiga laga diiwaan geliyo maadaama dawladda ay u ogashahay in la diiwaan geliyo una la mid noqonayo waxbarashadiisana wadan karo hadduu ganacsi sameynayna ganacsi sameyn karo noloshiisana u wadan karo watahay dad fara badan oo ina daawanaya kulli waxaan u maleynayaa arrin fara badan oo maalmihii ugu dambeeyay hadal hayeen inay meesha ka baxayaan si guud waxaad u soo hadal qaado waxyaabaha lala dagaalamayo musuqmaasuqa kamid ah in ay kamid tahay shiishada oo bulshada Soomaaliyeed aan u arkin inay tahay dambi balaaran wasaaradda caafimaadkana kol hore ay ku dhawaaqday in wadankan laga joojiyay shiishadu ay ka tahay xaraan hadda kadib cid lagu arkana ay suuragal tahay in dambiyo lagu soo ogo uma arkaan bulshada Soomaaliyeed shiishada muqaadaraadka lala dagaalamay inay tahay dhalinyaro fara badan waxa la leeyahay oo Soomaaliya way isticmaalaan bal aragtidaada haddii aad la wadaagto dhalintaas iyo fariintaada ku aadan isticmaalka shiishada ka ganacsiga intaba haddaan dhalinyarada xaafadda si aan la wadaago aragtidayda shiishadu sideedaba waa xaraan waa tobacco iyo xashiish iyo baqti wax isku jiro oo la soo carfiyay oo macrifiso lagu daray waa sigaarka kale wayna ka daran tahay sigaarka dawladda Kenya iyo dhaqaatiirtaba intay baareen ayay mamnuuceen marka waxaan kula talin lahaa dadka ka ganacsada inay ganacsi kale oo ka wanaagsan ay raadsadaan ka dhaafaan bulshada arrimahaas isticmaalkeeda haddaan ku labada maalmood oo la soo dhaafayna xaafadda Islii waxa laga qabtay dhowr meelood ay booliska galeen ay ka soo qabteen arrimahaas wax ku saabsan shiishadaas iyo waxyaalaha loo isticmaalo qalabka oo dhan waxa uu noo sheegay booliska shalay noo sheegay waxa kamid ah in qolal la ijaarto fadhi carbeed badan la dhigto shiishada nin walba gees uu ka dhuuqay guri loogu tagay dhalinyaro iyo dumar iska dhuuqay baasha qaaca xaafadda meesha dhan ka jiro marka waxaan oran lahaa wixii la mamnuucay oo xaraan ah adigana caafimaadkaada wax u dhimayo ina ka waantoobaan hadaan u nahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta joogaan siiba shiishadana dagaalkeeda hadda aad loo sii bilaarin doonana ay iska ilaaliyaan qofkii lagu arko ganaax 50,000 ah ama 6 bilood oo xarag ah way marka waa in inta aan lagu imaan wax kale aad ku badashid ganacsigaas ninka ka ganacsanayo kuwa isticmaalana waxaan kula talin lahaa in caafimaad ahaan aysan u wanaagsaneyn ay iska dhaafaan iyagana ay dambiyo ku mudan karaan hadii lagu qabto oo tahay shiinaad wada mahadsan tahay oo kaaga mahad celinaynaa waqtigaada iyo sida barnaamijka nagala qayb qaadatay wata qiyaartina daawanaysaa kaasi waxa uu ahaa shiina oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla markaana nala wadaagayay qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed walwal ay qabaan oo ku aadan hadalkii dhawaan uu shaaciyay wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i barnaamijka Howraarsan ayaad wali daawanaysaa
annagu waxaan nahay dad isku mid ah waxaan nahay dad isku diin ah waxaan nahay dad isku dhaqan ah waxaan nahay dad aad iyo aad u caqli badan waxaan nahay dad aad iyo aad u firfircoon waxaan ku noolaa meesha ugu fiican adduunka khayraadka adduunkana waa haysanaa dalkan inuu nabad noqdo oo caalamka uu la tartamo waa naga go'an tahay wax noo diida ma laha carruurteena inay iskool dhigtaan oo dhammeeyaan oo shaqooyin helaan oo nolol fiican ka samaystaan meeshaan iyagoonan ka cararin qolooyinkan khawaarijta ah uga cararin dalka annagu diyaar waxaan idinla nahay wax alla wixii aad u baahan tihiin wax alla wixii aan ku guulaysan karno wax alla waddankan aan nabad uga dhigi karno wax alla waddankan aan horumar ku gelin karno inaan samayno waa naga go'an tahay isku soo laabasho wanaagsan qiyaartiina daawanaysaa mar kale waxaad si toos ah u daawanaysaan barnaamijka howraarsan oo si toos ah idinkaga imaanaya RTN studio dhexe ee magaalada Nairobi warar ayaa noo soo socda ku aadan saraakiil mas'uuliyiin la sheegay inay ka tirsanayeen ama askar la sheegay inay ka tirsanayeen ciidamada dalka Soomaaliya oo loo soo xiray amar diido iyo waliba sidoo kale ku lug lahaanshiyaha arrimaha musuqmaasuqa oo dawladda Soomaaliya ay si weyn ula dagaalamayso maalmihii ugu dambeeyay hase yeeshee marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa dhinacaasi iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ururka OLNF ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin madaxweynaha cusub ee maamulkaasi loo magacaabay iyagoo sheegay inay doonayaan inay si weyn ula shaqeeyaan ururka OLNF ayaa markii ugu horeysay soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar Cagjar sida uu idaacadda VOA u sheegay afhayeenka ururka afhayeenka OLNF Cadaane Xirmooga ayaa sheegay inuu si buuxda ula shaqeynayaan madaxweynaha cusub laakiin waxa uu uga digay in dawladda dhexe ee Itoobiya ay ku lug yeelato arrimaha gudaha ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya aniga madaxweynaha cusub waxaan u aragnaa nin dhalinyaro ah oo hay'ado caalami ah ka soo shaqeeya oo wadani ah runtiina waxyaabo badan oo muhiim ah oo ay OLNF ay ka midaysan yihiin ayuu yiri Xirmooga mar wax laga weydiiyay waxyaabaha ay ka midaysan yihiin ayuu ku jawaabay waxaynu ka midaysanahay midnimada ummadda Soomaaliyeed midnimada dhulka xuquuqda dadka Soomaaliyeed iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed ee deegaanku ay leeyihiin ayuu yiri afhayeenka waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ee dawlad deegaanka iyo xubno ka tirsan ururka ay isku arkaan sida uu hadalka u dhigay magaalada Addis Ababa isagoo yiri madaxweynaha kulan qiimo badan ayaa in dhaxmaray kulankooda si aad u qiimo badan ayuu u dhacay is-afgaradna waanu gaarnay rajo badanna waan ka qabnaa hadafkii jabhadda ee ahaa in dalka Soomaaliyeed la mideeyo in la heli doono dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha cusub ee dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar uu sheegay in uu la bedeli doono magaca calanka Soomaalida deegaanka meeshana laga saari doono ereyga Itoobiya ee ku lamaasan dawlad deegaanka Soomaalida waxaana muuqata in OLNF arrintan ay si weyn iminka u soo dhaweeyeen watahay markana waxaynu aadaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dalka xogeenka xarunta dambi baarista CID-da sareeya guud Bishaar Abshir Geedi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in la soo xiray 28 askari oo kamid ah ciidamada dalka Soomaaliya waxa uu sheegay qaarkood inay sameeyeen amar diido halka kuwa kalena ee lagu soo qabtay arrimaha la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa oo dawladda Soomaaliya ay si weyn ugu jirta hadaladiisina waxa kamid ah oo aan runtii meeshan uga digayna yaani dadka qaatay yaani qalabka ciidamada ay leeyihiin agabka ay ku howlgalaan ama la tagay ama lunsaday
runtii waxay ka mid tahay waxyaalaha la daba socdo cid kasta wixii ay ka qaaday ama ay kala fakatay ama si khaldan ay uga bixisay gacmaha ciidamada qalabka sidana waxaan u soo jeedinaynaa inay ku soo celiyaan xeriyii iyo fadhiyadii laga lahaa hubkaas iyo qalabkaas ama agabka ciidanku uu leeyahay waxaan rabaa yacni annaga ka ciidan buluus ahaan waxaan rabnaa maadaama aan nahay salka dowladnimadu ay ku fadhiso maadaama aan nahay hay-adda ugu faca weyn dowladnimada Soomaaliya maadaama aan nahay hooyada iyo aabbaha ciidamada qalabka sida waxaan ku qasbannahay inaan horta annagu isnadiifinno dalka cadowga gudaha iyo dibadda inaad ka ilaalisaan shacabka Soomaaliyeed inaad ka ilaalisaan qarannimada inaad sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dhulka ka qaadaan laakiin adiga laguma diyaarin laguma qalabayn laguma tababarin laguma bixin waxaas oo juhdiya inaad ku dhibaatayso ummadda Soomaaliyeed inaad ku qaadato hantida qaranka inaad ku dhacdo hantida boobka digniinta ugu culus ugu dambeysana waxaan u diraynaa qaar ka midana xabsiga jiraan qaar ka midana xabsiga hadda ay wajihi doonaan oo sida hore aan u soo sheegay waxay ku jiraan baaritaankii iyo borosaaskii cid dambe oo laga yeelayo lacag sharci darraa inay ku qaado magaalada Muqdisho gudaheeda iyo guud ahaan goobaha sida sharci darrada ciidamada qalabka sida ay shacabka uga qaadaan lacagta baada oo sharciga ahayn cid dambe oo laga aqbalayo oo lagu dul qaadanayaan lama arko arrintaas waa ka digaynaa kuwana asbuucan aan ku soo qabannay kuwa kale tana waa daba soconnaa waxaan leenahay arrintaa laga fogaado cid loogu dul qaadanayo in hubka iyo qalabka iyo muuqaalka ciidamada sharafta leh ee qalabka sida in mid liita oo caqliga ka daboolan oo dhaawac u geerisanaya ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed midna aan garan karin inuu annaga inta dhibaatadaas dhexdeena ka sameeyo haddana magaceena asagoo sito oo nagu dhex dhuunto cid loogu dul qaadanayo ma jirto cid kasta waxaan u sheegaynaa inay arrintaa ka fogaato sharcigana u hoggaansanto dhinaca kaleeto shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada waxaan ka codsanaynaa adinkuna ha ka qayb qaadanina waxyaalaha corruptionka iyo waxyaalaha fududeeya qof kasta ee ciidanka booliiska ka tirsan waxaa loogu talagalay inuu shacabka u qudmeeyo shuruud la'aan si cadaaladna ugu qudmeeyo shacabka waxaan ka codsanaynaa ayagana adinka laftirkiina waxaan dareemaynaa inaad musuqmaasuqa ka qayb qaadataan oo adinka qof markii la soo xiro eedeysanaa inaad isku daydaan inaad inta ka daba timaadaan aad yacni ka shaqaysaan inaad ku raadisaan inaad lacag iyo ku bixisaan wax isdabamarin si sharcigu uusan u shaqayn shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay arrintaas adinka laftirkiina waa inkaga digayna arrin sax ah maaha ciidanka booliiska xibin kasta oo kamida inuu kugu adeego si volunteer naftiina iyo maalkiina iyo sharafkiina inay ilaaliyaan waa waajib saaran waajibkaas inay gutaan adinka ha ka hor istaagnin bilaahi calayk ha ka hor istaagnina ka hara goobaha ciidanku ay shaqooyinkoodii waajibaadku ku gudanayaan lacagaha aad la daba socotaan oo adinku aad corruptionka kobcinaysaan xoojinaysaan yacni aadna ku fidnaynaysaan bulshada iyo ciidanka intaba qof kasta dembiga oo gala asagaa iskale tahay daawadayaal intaasi aynu uga soo laabadano hadalkii taliya ku-xigeenka xarunta dambi baarista ee CID-da sareeyo guud Bishaar Abshir Geedi oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ahaa
kaga hadlayay 28 askari oo la soo xoray iyo kuwo kale oo sheegay in lagu daba jiro kuwaasi oo lala xiriiriyay arrimaha musuqmaasuqa oo ay Soomaaliya si weyn ula dagaalamayso iyo waliba arrimo la xiriira amar diida ciidan. haddaba Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay waxa ay ku jirtay la dagaalan xoogan oo dhinaca musuqmaasuqa ah iyadoo mas'uuliyiin fara badan iminka qaarkood ay xabsi ku jiraan oo ay kamid yihiin kuwa dhawaan laga soo xiray furdada ama degada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo lala xiriiriyay arrimaha la xiriira musuqmaasuqa kuwaas oo iminka ku xiran xarunta dhexe ee CID-da Muqdisho waxaana wararku ay sheegayaan wali inay socdaan baritaano lagu sameynayo. arrintan si weyn ay baraha bulshada ee Soomaalida u haysatay iyadoo laga hadlayo arrimaha la xiriira musuqmaasuqa iyo sida Soomaaliya oo colaado ka soo kabanaysa iminka ay ugu guuleysan karto in musuqmaasuqa ay si guud ula dagaalanto. stuudiyaha dhexe RTN iminka waxa ay gula soo biiray Xuseen Baaruud Gaxnuug oo isaga kamid ah aqoonyahanka Soomaalida ee caasimadda Nairobi ku nool. Gaxnuug soo dhawo marka hore. watahay bal marka hore aragtidaada sidee baad u aragtaa in dawladda Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha xukuumadda oo hormuud ku yahay Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha dalka ay musuqmaasuqa ula dagaalami karaan hadda iyo in lagu guuleysan karo aragtidaada? horta marka waad waan kaaga mahad celinayaa ku martiqaadka barnaamijkan marka labaad arrinkaas la dagaalanka musuqmaasuqa ka socda hadda dalka waa arrin aad u wanaagsan. musuqmaasuqu wuxuu ka mid yahay xaqiiqdii waxyaalaha ugu badan ee ragaadiyay dalkan meesha maanta uu yaalana dhigay in musuqmaasuqa lala dagaalamana waxay ka turjumaysaa in ay jirto ka go'naansho iyo inaad arki karto in hadda dawladdu ay diyaar u tahay in dhiiqada jamhuuriyaddu luha kula jirto in lagala baxo marka musuqmaasuqu haddii lala dagaalamo waxaa loo bixi karaa dawladnimo. musuqmaasuquna ma aha lacag kali oo la dhunsanayo iyo qof maaha. musuqmaasuqu hadda dalka si uga jiro waa systemic institutionadiibuu ku jiraa, ganacsigiibuu ku jiraa, xafiisyadiibuu ku jiraa, waxbarashadiibuu ku jiraa, caafimaadkiibuu ku jiraa. marka nidaamkii asaasiga ahaa ee nolosha ee bulshada oo dhan buu la falgalay. wuxuu u baahan yahay marka in si systemic ah sidoo kale loola dagaalamo oo baahsan oo dhammaan xafiisyada dawliga kuwa maxalliga bulshada rayidka intaba minaha waxaa waaye meel looga soo wada jeedsado waana meelaha keli ah xaqiiqdii haddii si rasmi ah looga midho dhaliyo dib u soo kabashada dawladnimada iyo hanaqaadka minaha waxaa dalku si rasmi ah looga dareemi karo. waayo hadda haddii amni darro la rabo in lagala dagaalamo amni darrada waxaa kow ka ah minaha waxaa la dagaalanka minaha waxaa musuqmaasuq. haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo minaha la dagaalanka musuqmaasuq wuxuu sahli karaa in amni loo baxo amaal dalka uu gacantiisa ku soo laabto. waayo qarax dhici lahaa ama minaha waxaa faldambiyada la geysan lahaa ama la geysanayay baa waxaa loo marayaa minaha waxaa nidaam musuqmaasuqa. watahay laakiin waxaa la isweydiinayaa wadamada marka ay la dagaalamayaan Baaruud waxaa jira sharciyo dawladda u degsan oo cidii lagu arko musuqmaasuq noocaasi ah loo yahay ciqaabta uu waajihi karo waliba hay'adaha cadaaladda go'aanada ay ka qaadanayaan oo kale. bulshada Soomaaliyeed waxay si weyn isku weydiinayaan qaarkood bulshada qoraallo baraha bulshada la wadaagaya qaarkoodna dad aqoon-yahanay ay qorayeen qofka musuqmaasuqa lagu soo qabto ciqaab noocee baa la marsiin karaa, maxkamad noocee baa la saari karaa. Soomaaliya marka hore intaan la bilaabin howlgalka lagu dagaalamayo marka hore in la helo sharciyadii lagu fulin lahaa dadka lala xiriiriyo arrimaha musuqmaasuqa. taas soo mas'uuliyad karto waa mid loo baahan yahay. aad iyo aad Cabdi aad iyo aad arrin wanaagsan ka hadlaysaa. waxaan dhammaanteen ogsoonahay in sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa uu qabyo qoraal yahay welina aysan baarlamaanku meel marinin uusan weli sharci noqonin ka doodistiisuna weli ay socoto. aad bay u wanaagsanaan lahayd in institution ahaan kolka hore la dhiso minaha waxaa waaye nidaamka shuruucda iyo minaha qaabkii loola tacaali lahaa barnaamijkaas. balse waxaad moodaa in dawladdu hadda aad dhaqdhaqaaqan la dagaalankan musuqmaasuqa hadda bilowday ay rabto inay usii simaato qaab dhiig joojin ama emergency ahaaneed inta sharciga la ansixinayo. waayo meelaha ugu muhiimsan ee sharciga waxaa ka mid ah qofka
musuqmaasuqa heerarka uu kala leeyahay hay musuqmaasuqu wuxuu leeyahay macnaha waxaa waaye darajooyin buu kala leeyahay xukunka qofka lagu ridayana mar walba waxay ku xidhan tahay nooca musuqmaasuqa ee qofku uu ku dhacay hay waxaan u malaynayaa soo xiritaan iyo dambi iyo macnaha waxaa waaye xukun ku ridid waa kala laba hay weli ma hayno qof xukun lagu riday oo musuqmaasuq lala xiriiriyay laakiin waxaan haynaa qof musuqmaasuq loo soo qabtay aad iyo aad marka qabashada musuqmaasuqu macnaha waxaa waaye way socon kartaa qofka musuqmaasuq waa loo soo qaban karaa laakiin xukun ku rididda waxaad moodaa inay u baahan tahay in lala tiigsado shuruuc rasmi ah oo la dagaalanka musuqmaasuqa macnaha waxaa waaye maaragtay ku qotonta si rasmi ah macnaha golaha baarlamaanka iyo golaha sharci dejinta dawladdu isla waafaqsan tahay mas'uuliyiin baa qaarkood xiran oo furdada muqdisho dhinaca dekedda laga soo qabtay waxaa ka mid ah baa la leeyahay nadar tabax maalin oo muddo 7 ah gacanta dawladda Soomaaliya ku jirta dadkan lagu soo eedeeyay musuqmaasuqa ee dawladdu ay gacanta ku soo dhigto hadda jeelalka ku jira oo qaarkood ay mas'uuliyiinta yihiin cadaaladda ay heli karaan baa dadku qaar is weydiinayaan inta ay gaarsiisan tahay qofka in la soo xiro musuqmaasuq loo soo qabto waxay noqon kartaa in la soo eedeeyo oo gacantii dawladda uu soo galo laakiin cadaaladda qofkaasi uu heli karo iyo waliba hofnaanta garsoor lagu ridi karo mas'uuliyiintu ay qaadan karaan dhinaca cadaaladda la xiriirta intay gaarsiisan tahay oo aad aaminsan tahay qudhaada iyo garsoorka madax banaanida iyo cadaaladda qudhiisa ka dhex jirta golaha garsoorka dalka horta waxaa ka jira isbedelo kala duwan si aad la socotay waayahan waxaa la magacaabayay gudoomiyaal maxkamadeed isbedel fara badan baa ka socday macnaha waxaa waaye nidaamka garsoorka ee dalka oo dhan si guud iyo si gaar ahaaneed intaba waxaad moodaa in dhaqdhaqaaqa garsoorka ka dhex jira uu ka turjumayo in la rabo in la kala hufo waa iyada lafteedu ka mid tahay la dagaalanka musuqmaasuqa waayo qofka xafiiska fadhiya ee xafiis dawladeed fadhiya hadduusan ku maamulaynin xafiiskaas dawladeed si cadli ah oo dhexdhexaada oo saxa oo xafiiska isagu sida ay la tahay uu isticmaalo waa nooca ugu xun ee musuqmaasuqa ka mid ah marka in isbedel garsoorka dhexdiisa uu ka jiro oo aad loo kala hufay iyada lafteedu waxay ka turjumaysaa in garsoorka aan loo qaadan karin sidii hore macnaha waxa uu ahaa oo isbedel laftiisa uu ka jiro garsoorka gudihiisa dalka maalinkan maanta marka waxaad leedahay cadaaladda dadkaas ay fili karaan waa mid bulshada Soomaaliyeed ay arki karaan oo cadaalad ku dhisnaan kara marka ma dhihi karno macnaha waxa 100% macnaha waxa cadaalad way heli karaan balse waxaa jirta isqoraansi macnaha waxa waaye dalku maanta waa la is arkaa qof walba qofka la xidhaay iyo qofka musuqmaasuq lagu soo qabanay waa la arkaa dadku tooshku ku wada qabsan yahay marka ma u malaynayo in godob fallo iyo maaragtay jirdilo iyo maaragtay xadgudubyo ka dhana bini'aadmiga oo baahsan loo geysan doono dadkan musuqmaasuqa lagu soo qabanayo waxaan aaminsanahay inay cadaalad hortagi doonaan qof walbana macnaha wixii lagu hayo macnaha waxa waaye la hordhigi doono xuseen baaruud gaxnoog waxaa tahay hogaamiyaha guddiga ardada Soomaalida ee jaamacadaha dhigata ee Kenya aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee Nairobi joogana waad ka mid tahay taladaada ku aadan hanaanka dawladda ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa iyo waliba cadaaladda loo baahan yahay kulli fikradda aqoon-yahanada bulshada si fiican bay u soo dhaweynaysaa dhalinyarada ah waxaad ku biiran lahayd dadka ku daawanayay dawladda waa fariintaad gaarsiin lahayd oo ka faa'iideysanaya fursadan ee ku aadan iyadoo musuqmaasuqa la dagaalamaya haddana in cadaalad hufan la helo maxaad u sheegi lahayd bulshada waxaan u sheegi lahaa in horta xuquuqda dadka Soomaaliyeed la ilaaliyo intii la ilaalin karo marka koowaad oo ciidamada qalabka sida iyo maaragtay xarumaha u xilsaaranaya dambaarista intaba ay u maraan jidka saxda loogu talagalay in loo maro barnaamijkaas la dagaalanka musuqmaasuqa oo la siyaasadaynin marka midda kale waxaa kaloo iyadana aad muhiim u ah in barnaamijkan la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu hormuud ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre uusan noqonin barnaamij maalmo socda in uu noqdo barnaamij sustainable oo salfadhiya waara si rasmi ana u gaadha dhammaan daafaha macnaha waxa waaye guud ee dalka
خاص ahaan waliba waxaan aad macnaha waxa u soo jeedin lahaa in uu dhaafo macnaha waxa waay magaalada Muqdisho iyo caasimadda dalka oo uu gaaro in la xisaabtamo maamul goboleedyada dalka ka jira waxa ay bulshada u qabanayaan iyo macnaha waxa waay maamulkoodu qaabka uu macnaha waxa waay wuxuu salka ku hayay iyo macnaha waxa sidoo uu saleysan yahay musuqmaasuq waa inuusan noqonin mid short lived oo macnaha maalmo noolaada laakiin misleedahay dawladda Soomaaliya hadalkaada hadii aan sii taxraacno in hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay la xisaabtami karto ku aadan wax qabadka iyo hadii ay jiraan musuqmaasuq dooda madaxda sare lagu soo eedeyn kara maamul goboleedyada way ku khasban tahay waayo dalka waxa mas'uulka oo loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaruhuna waa madaxii xukuumadda waa hawlgelinta shaqo ee macnaha waxa way dawladda inay mas'uuliyadda qaran macnaha waxa way dhabarka u riteen waxay ka turjumaysaa mas'uuliyadda culus ee u taala iyo sida macnaha looga rabo inay dhabarka ugu ritaan mas'uuliyad walba oo maaragtay ee dalku leeyahay raas Kamboni ilaa raas Casayr sidaas darteed waxa looga baahan yahay inaysan macnaha Muqdisho bas ku ekaanine maamulka iyo macnaha nidaamku inuu baaho isbeddelku inuu gaaro dhammaan macnaha waxa way dalka maamul goboleedyadu in la jijuwa ma aha laakiin way ku khasban yihiin inay u hoggaansamaan nidaamka dawliga way ku khasban yihiin inay macnaha waxa way dawladda federaalka in macnaha waxa way go'aamadii awaamirta ka soo baxaya inay macnaha u dhaga nuglaadaan laakiin eegana waxa macnaha waxa way la rabaa in la tashi iyo macnaha waxa way ka qayb qaadasho iyo ka qayb gelin inay ka helaan macnaha waxa way barnaamijka xawadinta macnaha waxa way dawladnimada aad baad mahadsan tahay Xuseen Baaruud Gaxnuug qiyaarteena daawanaysa waxa uu ahaa Xuseen Baaruud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool oo aan kala sheekaysanayna arrimaha la xiriira musuqmaasuqa iyo waliba la dagaalanka dawladda Soomaaliya ay ku hayso وطهاي مركانا نادو مقالة دينسور قبل كباي كونفور قلبت سوماليا مقالة دينسور waxaa ka bilaabmay olole dib loogu soo celinaya bilacdii ay lahayd magaaladaasi iyadoo dad fara badan isku soo baxaan ay bilaabeen inay sameeyaan olole la xiriira dhinaca nadaafadda deegaanka waxyaabaha ka dhex muuqanaya dadkan waxaa ka mid ah dhalinyaro fara badan oo iskood isku xilqaamay oo doonaya inay soo celiyaan bilacdii ay magaaladaasi Diinsoor lahayd Xuseen Cali Geesay ayaa warbixintan RTN halkaas uga soo diray olole nadaafadeed oo lagu horumarinayo bilicda degmada Diinsoor ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka horumarinta dhalinyarada Diinsoor DYDO kuwaasi oo ah dhalinyaro ku midoobay sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen horumarka deegaanka haddaba dhalinyaradii soo agaasintay oo goobta ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa dhammaan waa salaamayeen inta ila joogta intana daawan doontaba ururka Diinsoor Youth Development Organization ururka horumarinta dhalinyarada Diinsoor saaka waxay iskugu soo baxeen ololo oo nadaafinta deegaanka ah hore waxay u xuseen maalinta dhalinyarada adduunka 12 Agoosto barnaamijyo badan ay qabteen maantana tan ay dhinac ka tahay horumarinta deegaanka anigoo aadan Cabdinuur isku dibiradaha ururka horumarinta dhalinyarada meel walba joogto waxaan ugu baaqayaa maanta waqtigiina la joogaa kaalintiina qaata qof walbana ha hagaajisto wadanka iyo meesha deegaan ahaan meesha markaas uu ku nool yahay salan dhisi oo nasdoordan in wax qabad ku soo degmada inay horumarka dhanka amna dhanka oo nadaafada dhanka horumarka bulshada oo san ka baaqna sidii bulshada oo ka dhaqan degmada Diinsoor nadaafada in ka dadaalan markii ugu horeysay aad qabataan markii ugu horeysay iyo markii oo nadaafada suqawan waaye haankana meesha rajaajna markii inka damboystilay in agaana mar walba basaas dhalinyarta teeganaadan oo nadaafada isku soo wal qabsadan deegaanka ololaha nadaafadeed walaha haanka inka eedisiyo ma agtaa barnaamijyo badan oo dhanka una kooxaha nabadiidka ee degmada dhibaato fara badan oo wadati intay ma ka mashquulsanooniyaa sidii deegaanka dhalinyaradii aan dhalatay oo deegaanka aan iska sheegna ururka dhalinyarada ee astaanta soona ee aan soo busna wax qabadka abna magaaladan oo aan ka shaqaynay geemana qasabiya in aan ka shaqaynay gobol oo saga absana ma leh abna magaalada seef age walwalba dhalinyaradii magaalada saga aruurtii danta ateegna qasabtii gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dib u dhiska degmada Diinsoor oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulka ay mar walba garab taagan yihiin dhalinyarada saaka caliseedii 12 kan soo kacnay
maamulka iyo haweenka iyo dhalinyarada anoo iskaashanayna maamulka iyo bulshaweynta Soomaaliyeed degmada Cali Saydan kacnay maanta hadda la joogo saacadan 5 saac la joogo ayaan hadda soo gabagabeynay waxa mahadii ah anagoo iskaashanay bulshadu waxay fahmeen in dawlad jirto deegaanka dawladda ka jirta ayay fahmeen waxa yeelay hadii dawlad jirin waxa yeelay in iskaashi lahay maamul arkleen maamul iyo urur dhalinyarada kama jirin awal laakiin hadda waxay fahmeen hadii dawladda meesha timid in urur dhalinyaro la dhisi ururka haweenka ay dhisan yihiin in gacantooda dawladda gacantooda iyaga ay ku jirto ayay ogaadeen Xuseen Cali Geese RTN degmada Diinsoor tahay markana waxaynu aadaynaa wadanka Mareykanka John McCain oo ka tirsanaa senatarada aqalka sanadka ee wadanka Mareykanka isla markaana siyaasi caan ah oo si weyn looga yaqaan wadankaasi ayaa lagu soo waramayaa in uu geeriyooday senator John McCain oo isaga kamid ahaa dadkii maxaabiista u noqday xabs dagaalkii Vietnam ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu geeriyooday sidoo kalena ahaa senator ama u tartamay siyaasi u tartamay xilka madaxtinimada wadanka Mareykanka sanadkii 2008 xaaladiisa caafimaad ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad looga deerinayay laakiin waxa uu dhintay aroortii hore ee Sabtida sida ama gelinkii dambe ee Sabtida sida uu sheegay xafiiskiisa war qoraal oo ka soo baxay isagoo ku dhintay da'da 81 sano John McCain ayaa isaga waxa uu ahaa senator matalaya gobolka Arizona oo muddo dheer halkaasi isagu ku matalayay aqalka sanadka maalmihii ugu dambeysay si wanaagsan loogama warramay xaaladiisa caafimaadka waxaana dhaqaatiirtiisu ay la tacaalayeen ilaa July sanadkii 2017 dhowr jeer ayaa lagu soo warramayaa inuu galay qalliino kala duwan laakiin waxa lagu soo warramayaa hadda inuu geeriyooday war qoraal oo ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in 4:28 daqiiqo oo Agoosto 25keedii uu geeriyooday McCain sida warkaasi uu ku sheegay xafiiskiisa qaar ka mid ah xaaskiisa iyo qaar ka mid ah caruur oo dhalay ayaa baraha bulshada waxa ay ku bilaabeen inay soo dhigaan fariimo ay dadka ugu xaqiijinayaan inuu dhintay John McCain laakiin wax faahfaahin dheeraad oo intaasi ka duwan ma bixinayaan qaar ka mid ah caruurtiisa ayaa baraha bulshada gaar ahaan Twitter-ka waxay ku soo qoreen inay aad uga xun yihiin geerida aabahood oo ay tabi doonaan isla markaana uu ahaa qof si weyn ay u jeclaayeen bulshada ku nool wadanka Mareykanka hogaamiyihii mucaaradka ee wadanka Russia wararku waxay sheegayaan in loo taxaabay xabsiga kadib markii ciidamada wadankaasi ay jeelka dhigeen mas'uulkan oo isaga ahaa qof si weyn taageero ballaaran ugu lahaa wadankaasi Russia hogaamiyaha mucaaradka Russia Alexei Navalny ayaa lagu xiray magaalada Moscow ee caasimadda Russia xarigiisa ayaa ku soo beegbayay 2 bilood kadib markii xabsiga laga sii daayay waqtigaasi oo lagu eedeeyay inuu abaabulay banaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ee Vladimir Putin afayeen u hadlay hogaamiyaha mucaaradka Russia ayaa sheegay in aanay cadeyn sababta hadda loo xiray isagoo inta ku daray in lagu hayo saldhig uu leeyahay booliiska wadankaasi mas'uulkaasi ayaa Sabtidii shalay baraha bulshada ku soo qoray in mudaharaadka looga soo horjeedo Putin la qaban doono 9 bisha September akhyaarta in daawanaysa ay guud ahaanba intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii howraarsan oo RTN xarunta dhexe Nairobi idinkaga imaanaya anigoo Cabdilcasiis Barrow ayaa barnaamijka idila socodsiinayay farsamada waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen waxaana soo saaray Idris Maxamuud Imaan waxaana dhinaca kaamirada gacaniga siiyaan Diifa Gafana tan iyo kulanti dambe dhamaantii iyagoo isku duubanba waxaan idin leenahay nabadgelyo